kusoo dhawaaw English for everyone waxaan soo niri waxay ka kooban yihiin ilaa ay 4 level iyo buugaag kale oo 6 oo ayagana koorsooyin kale ah. Okay, sidee marka loo bartaa levelka rabtaba ku jira ama level 1 ama level 2 ama level 3 ama level 4 ama waxa ku jiri kartaa oo kale English for everyone business kamidka level 1 business level 2 ama vocabulary ama idioms ama phrasal verbs taa doonto ku jir buugaagtani isku sii wada shaqeeyaan. Marka waxaan rabaa in halkan kugu soo gudbiyo koorsada iyo buugaagteeda iyo material ku jirta ama waxyaabaha koorsada la socda sida loo adeegsado. How this course works. Okay. Marka English for everyone waxa loo naqshadeeyaa leeyri dadku inay ayaku luqadda isbaraan. Sida aad ogtahay luqad marka la baranayo waxa loo baahan yahay inuu qofka bini'aadanka uu yaqaano naxwaha luqadda, inuu yaqaano vocabulary-ga ama erayada, punctuation-ka iyo istaaga iyo hakadka iyo dhageysiga ee listening-ka, speaking ee hadalka, reading ee akhriska iyo writing ee qoraalka. Okay, English for everyone buugaagta luqadaha Englishka lagu barto dhan waxay uga duwan yihiin. Ayna runtii meel ku saareen aanan loo barbar dhigi karin kuwa kale. Waxay wataan waxyaabo lagu dabaqayo nolosha jirta. Kuwaasoo markaa lagugu soo cabiray si masawir ah, chantus ah, lagu soo masawiray. Ayadoo markaa la isticmaalayo images and graphics si aad u xasuusato kuna sahasho barashadeeda. Sida ugu sahlan oo qofka bini'aadanka wax u baran karo. Waxa waaye waa inuu masawir ama muuqaal maskaxda bini'aadanku waxay ku shaqeydaa waa masawiro. Teach man by image. qofka bini'aadanka waxa wax lagu baraa waa masawirada. Maskaxdu waxa ay aragto masawirku waxa u qaybsamaha leeyahay 1000 eray hal masawiro u qaybsami kara. Marka masawiro ayay wadataa marka lagugu tusayo si aad u fahamto sida waxa laga hadlayo haday noqoto grammar haday noqoto listening haday noqoto reading inaad markaa qabato. Waxa kale oo laga rabaa inaad adeegsato codka la socda buugaagta. cod waxa jira aan kugu soo tusay appkii cashirkii ka horeeyay cashirkan inuu yahay filaya appka sida loo adeegsado DK app. Hadaad mobile haysan ah website-ka DK isticmaali karto, hadaad mobile haysatan inta isdiiwaan geliso inaad appka ka dhageysan karto. Marka waxay u qaybsantaa koorsadu course book iyo practice book. Course book module-ka macalinka kala shaqeynaya ee unit waa maxay, module waa maxay, waa noo soo socota. qaybtan exercise-ka macalinka kala shaqeynaya balse markay timaado practice book waa homework ama imtixaan laga doonayo kaliga inaad ka soo shaqeyso. Waxaan filayaa inaad ila socoto. Marka buugga la kala bixiyo marka halkan waxa kaaga soo baxaysa waa unit numberka. Halkaana waxa kugu soo baxaya waa learning pointska ama waxyaabaha la rabo inaad ku barato unitkan lagu sharaxaya. Halkaana waxa lagu sheegaya waa luqadda aad baranayso. Key language ayaa lagu leeyahay. Badanaana midab ayuu leeyahay. Marka haduu yahay colored ama midab mid leh waxaad ogaataa in concept ay jirto marka laga rabo inaad qabato. Layliyada waxay wataan badanaa haddii calaamadaas aad aragto ama cashirka hadduu calaamadaas wato, layligu hadduu calaamadaas wato, macnaheedu waxa waaye audio-ga inta tagto ama audio appka DK appka waxaad ku qortaa unitka tusaale kale cashirkaana baranaysay ee your job shaqadaada. Waxaad leedahay 10.1 aad ku qoraysaa appka. asaga ku akhrinaya 10.1 waxa laga hadlaya. I am a police officer. He is an engineer. They are scientists. Waka iyo wixii lamida ayaka ku akhrinaya si native dadkii u dhashay luqadan ayaa ku akhrinaya hadaad appka adeegsato. Marka waxa lagu yiri halkan unit walba waxa loo jajabshay modules 10.4 10 waxay u taagan tahay unitka, 0.4 waxay u taagan tahay waa module-ka. waan kugu celceli doonaa. Repetition is the mother of learning. Ku celcelintu waa hooyada waxbarashada. In badan aan ku dhihi doonaa waxaan maraynaa unit hebel module hebel. Ila soco. Marka exerciseska ayakana waxa la rabaa inaad ogaato exerciseska ee kuwa macalinku kala shaqeynayo waxay wataan white background, kuwa homeworkana waxay wataan colored background. Marka haddii aad la socoto koorsadan wax badan ayaad fahmi doontaa qaybta homeworka iyo qaybta course book. Okay, language modules jira. Luqad walba lagu barayo, wax walba lagu barayo. Waxa jirta unit walba inay module u qaybsantaa aan ku soo iri. Unit walba waxay u qaybsantaa modules. Module walba wuxuu leeyahay ciwaan ama title laga rabo inaad ogaato waxa markaa lagu barayo. Okay, marka waxa lagu siinayaa marka hore sample language ee tusaale sida looga shaqeynayo ayaa lagu siinaa. Tusaalahaas wuxuu wataa graphic guide ee chantus ku tusaya waxa laga hadlayo saad u qabato. waliba sambalkaas wuxuu kale u leeyahay meesha la rabo inaad diiradda saarto midaba loo yeelay ka duwan waxa kale. He does not work inside iyo wixii la mid midaba loo yeelay. Waxa la rabaa inaad barato does not in la rabo meesha la rabo inaad ka shaqeydo workina ay tahay marka
base formka ama ficilka marka laga hadlayo waa baran doonaa base form maxay waa noo soo socdaa yaana ku degdegin supporting audio mar walba waa lagu xasuusinayaa cod waxaa jira aad dhageysan karto abka inta adeegsato ila soco okay how to form sidee marka loo dhisay ayaa jirta formation guide sida ay u dhisan tahay sida la iskugu dhadhajiyo dhagax dhiga luqadda ayaad ku baranaysaa how to form waxa lagu leeyahay sidaan ka bilow sidaan ku xuji sidaasay u dhigmatay we break it down cadcada u jajabinayna waxa la yiri sidee loo cunaa maroodi cadcad u cun maroodi hadaa rabto inaa cunto waa tusaale hadaa rabto la yiri inaa cunto geel aan ka soo qaadnaba sidee loo cunaa hal hadaa rabto inaa cunto kaliga aad cantuugto maanta oo dhan waxa la rabaa inaad cadcad u cunto hilibkeeda tartiib inta soo qaadato dhag lagu kariyo tartiib cadcad u cun marka dambe ayada iska dhamaanayse sidee marka koorsadan loo bartaa cadcad u baro sidee loo dhisay cadcad iskugu dhadhaji waka sida kaliya wax loo baran karaa waxaan aaminsanahay hurbad ahaan runtii in ay tahay in qofku oo visually wax u barto kuna celceliyo qaacidadan oo barto oo waxba xifdinta waxba laguma barto vocabulary modules ayaa jira qayb walba ee kamida koorsada dhowrkii unitba waxaa soo dhex galaya vocabulary ee bangigaaga ku darso erayada vocabulary-ga waxay wataan muuqaalo sida waxa laga sheekeynayaa kale around town ama magaalada maxaa ku yaala waxa ku yaala magaaladu waxay u qaybsantaa magaalo waxay u qaybsantaa degmo waxay u qaybsantaa caasimad waxa ku dhex yaala bus station train station post office iyo park iyo wixii lamida masaajid iyo waxa ku yaala lagu leeyahay synagogue iyo church wabiyun wa salawatun wa masajidu aan ku dhihi doonaa yudkaru fiha ismullahi kathiran waa kaniisad waa masaajid waa synagogue iyo waa temple haddaad suuratul xaj aad la socotay tusaalahaas waxaa loo dabaqayaa maadaama qof islaama aad tahay inaad wixii ku qabato marka lagu yidhaahdo marka waxaa ku taalla magaalada Shaleemo waxaa ku taalla masrax waxaa ku taalla aeroport waxaa ku yaala maarata farmashi waxaasoo dhan ayakoo mataqaanaa calaamadihii wata ayaa lagu barayaa marka calaamad waxaa jirta dad waa line ku hoos yaala linekaas waxaa loogu talagalaa luqadaad ku hadasho eraygaa sida loo yiraahdo ama waxa uu yahay inaad ku hoos qorato aeroport oo kale haddii aeroport ku hoos qorato masaajid oo kale masaajid haddaa ku hoos qorato mosque iyo wixii lamid ah marka linekan warqadda waa lagu lifaaqa video walba inta soo daabacatay waxaa lagaa rabaa aad ku hoos qorato meelna aad dhigato dhawaaqa sida loogu dhawaaqayo ama eraygaas waxaa laga wada haddaa dhawaaqiisa baratay labada optionba waa haysataa xariijintan hoosteeda inaad ku qorataa loogu talagalay ila soco waa hordhicii sida koorsada u shaqaydee marka practice modules ayaa jira ee buuga mar walba la rabo inaad ka shaqayso ee waa exercise-ka buuga ama practice moduleska exercise walba waxaa loogu talagalay in ardayga la baro la fahamsiiyo maskaxdiisa oo ku dabaqo wixii la soo baray si loogu itixaamo unit walba layligeeda waa uu la socdaa unit hebel 0.5 iyo wixii lamida waxaana loogu talagalay exercise-kan inuu la socdo course buuga iyo practice buuga oo homework midna uu yahay mid lagaala shaqaynayo marka waxaa laga rabaa ardayga si uu u noqdo mid xirfad u leh ama si uu u noqdo mid si fasaaxada ugu hadli kara luqadda inuu layliga ka shaqeeyo marka layligu wuxuu wataa calaamado ku tusaya waxa lagu samaynayo tababarka ama waxa la dabaqayo practice-ka lagu samaynayo layli waxaad arkaysaa lagu dhahayo grammar ku baranaya waa matoor uu leeyahay layli waxaad arkaysaa lagu leeyahay reading ku baranaya buug la kala furayo wataa chantus layli waxaa jira headphone qof madaxiisa ku jiro lagu barayo oo laga wado waa listening waxaad ku dhageysanaysaa layli waxaa jira weyn iyo yar wata waa vocabulary erayaa laga rabaa inaad ku barato layli waxaa jira san calaamadaana wata oo laga wado waa speaking waa inaad dhawaaqdaa marka layliga ama practice ha noqdo mid ama buuga midka la socda ha noqdee course buuga chantuskaasi wuxuu ku tusayaa grammar miya reading miya listening miya vocabulary miya speaking miya midka aad baranayso mar walba waa lagu sheegayaa iyo wuxuu ku dabaqan yahay adaa laga rabaa inaad inta dabaqdood barato printed on your brain ee maskaxdaadana aad ku daabacdo si aad u qabato maxaa yeelay repetition is the mother of learning aan ku dhihi doonaa ku celcelintu waa hooyada waxbarashada koorsadu say u shaqaydaan weli ku jirnaahe saan kuu soo sheegay unit walba waxay wadataa hadday layli tahay hadday cashir tahaba lambar oo module 13.10 hadda halkan ku qoran iyo instruction waxa lagaa doonaya inaad qabato halkan oo kale waxa lagu yiri filling the gaps by putting the verbs in the correct form adiga waxa lagu yiri buuxi meelaha banaan adoo ficilka sidii loogu talagalay ka dhigaya waxa lagu siinayaa marka sample answer ee tusaale ayaa lagu siinayaa lagaaga jawaabayo lagaaga shaqaynayo si adigu inta kalena aad u karbaashto waxaana lagu siiyay meel xariiqin dheer ee laga raba inaad adigu ku qorto haday tahay godka buuxi waaye
waxa jira graphics lagu siinayo ama chantusyo lagu sheegayo qofkan dangiiga ee telefishinka daawanayo kale in waxa laga hadlayaa ay tahay watching TV cod ayuu wataa mar walba xasuuso supporting audio abka dhageyso haddaad ku qorto 13.10 abka ayaad ka dhageysan kartaa waxa laga hadlayay listening kuna wuxuu wataa headphone-ka hadduu ugu jiro waa riwaayadda Ingiriiska ilkaha looga jabshaan ku dhihi doonaa 45.2 alif haddii aad ku qorto abka waxaad dhageysan kartaa waxa laga hadlayo marka hore dhageyso transcriptiga waa ku sii doonaa iyo codka dhawaaqa waxa ay ka hadlayaan ayadoo qoraal ah balse qoraalka waxa ka muhiimsan inaad ta dhageysato aad markaa kadib ka jawaabto badana hadduu yahay layligu speakingna waa kana waa dhala dhukuran oo dhawaaqaysaan u bixiyay waxa lagu leeyahay say the answer is out loud ama speak out loud kor u oro waa waxa la rabo inaad speakingka ku dhisto Englishka qaacidado la bartaa kaliya kuma anfacayso libax ama libax waa in laga hadashiyo my god help you out waxa laga wadaa in laga hadashiyo loo baahan yahay marka speaking exercise-ka wuxuu ku tusayaa inuu wato horta calaamadii audioga iyo inuu wuxuu ku tusayaa inuu wato dhala dhukuran ee dhawaaqaysa sida dhaladeeda oo kale ilaa markiis waaye markaas waxa laga rabaa inaad ansarka kor u dhahdo jawaabta markaad ku qorto godka kor u oro warqad walbana waxay ku lifaaqan tahay video walba 10 fadlan soo daabacee ka shaqee sida ayaan kugula talinayaa okay wali waxaan ku jirnaa waa hordhici koorsade walina waxaan leenahay sidee koorsada u shaqeeydaa English for everyone waxa wataa cod loogu talagalay ardayga in uu caawiyo si uu u barto luqadda sida loogu dhawaaqo inuu fahmo marka la hadlayo in uu fahmo lahjadaha kala duwan ee lagu hadlo asagu lahjadiisa inuu saxo inuu barto punctuationka iyo meesha lagu istaago iyo meesha lagu hakado waxa la rabaa inuu barto goorma la istaagaa goorma lagu celiyaa inta istaajiyo inuu ku celceliyo wuxuu bartay si uu u noqdo qof ku kalsoon ku hadalka iyo fahamka luqadda marka layliga listeningka ee headphone-ka ugu jiro ee aan u bixiyay riwaayadda Ingiriiska ilkaha looga jabshaan ku dhihi doonaa marka cashirada dhex gashee listeningkan waa exercises laga rabo marka sample-kan wuxuu ku sheegaa inaad codka inta dhageysato abka ka dhageysato aad markaa ka shaqeyso supporting audio meel walba calaamadaas wadata hadduu noqdo cashir hadduu noqdo layli hadduu noqdo maaratay wax walba noqdaba mar walba codka waad dhageysan kartaa waxa ku diyaara cod free ee aad website-kana ka dhageysan karto abkana ka dhageysan kartaa hadaad booqato DK English for everyone ama dkefe.com waa website-kii hadda koor inta ku geeyay aan ku iri buugaagta ka soo iibsay waxaan rajaynayaa inaad buugaagtii hortaada yaalaan ama computer-kaaga ka gal ama waxaad ka gashaa tablet-kaaga sida iPad-ka iyo Samsung Tab oo kale ama waxaad ka gashaa mobile-kaaga smartphone-ka taa doontaba ka gale codka inaad dhageysataa laga doonayaa si aad u dhisto fluidity-gaaga ama fluency-gaaga ila soco mar walba aan dhamayno unit mar walba aan dhamayno module mar walba aan dhamayno semester waxa lagu leeyahay track your progress ee meesha aad marayso la soco waxa loo naqshadeeyo koorsadaan in uu qofku la socdo meesha uu wax marsiinayo mar walba waxa la siiyaa waxa la review modules ee in uu siiyo markuu dhameeyo semester ama theme maxaa yeelay koorsadu waxay ku salaysan tahay level 1 oo kale ilaa iyo 7 theme 7 semester aan ka dhignay hadii la yiraahdo book oo dhan hal koorso laga dhigaya 700 cashir uu noqonaya iyo wax ka badan marka looma baahna waxa la rabaa in ardaygu uu sanicin waxbarashada semester tartiib hal shayna inaan laga tagin hadii la dedejiyo waxay noqonaysaa in waxyaabaha qaarkood laga tago hal theme ku dhahay lagama tagin sidaa darteed ayaa loo soo koobay 70 cashir mar laga dhiga semester 1 konton cashir la semester 2 ilaa 60 cashir semester 3 saasay u socotay iyo haluma jarra ay kitaabadu dhihi jireen iyo wixii lamid ila soco marka waxa loogu talagalay in ardaygu checklist oo marsiyo oo isla socdo meesha wax u marayaan markii aad dhamaydo unit waxa lagu leeyahay ma fahamtay hubi ma fahamtay tigta saar waan fahmay laga wadaa tik marka saarto macnaheedu waxay tilmaamaysaa inaad fahamtay haddii aad rabto inaad dib ugu laabatana dib ugu laaba ha degdegin kaama cararaysee ila soco waa checklistigii review the English you have learned in unit 8 unit 1 ilaa 8 aa lagu leeyahay semester 1 oo kale level 1 haddii aad soo baratay ama level 1 hadda aad marayso maxaa yeelay introduction kan how this course work waa iskaga mid levelado dhane marka waxa lagu leeyahay unit hebel waxaad ku soo baratay waxaas tigta saar ma fahamtay unit hebel tigta saar unit hebel tigta saar unit waxay tusaysaa inaad checklist aad ishubiday buugga haddaad soo iibsatay saan kugula taliyay diika inta booqatay hal abuurka iyo qoraaga inta caawiday ama dadkay u idmadeen ee xuquuqda copyright-ka aad ilaaliday waxaa jira unit walba jawaabaheedii waa oo wataa buuggu jawaabaheedii waa oo wataa haddaad buugga soo iibsatay waad fiiri kartaa jawaabahaas aad uga shaqaysay ila soco hadday noqoto practice buugga ee homework iyo hadday noqoto answeriska ee layliga caadiga balse looguma talagelin in answerka inta fiirido inaad marka hore aad nafta kalifin aad wax koobiyada markaas waxaad noqonaysaa qofkii naftiisa khiyaamay
marka hore ka shaqee nafta kalif kadib jawaabaha ka fiirso saad markaa u fiirido inaad fahamtay waxa laga hadlayay audio inoo watana waa lagu sheegayaaba ansariska markaad tagto bogga ansariska ama jawaabaha meesha ku qoran yihiin waa kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay codkaas dhagayso saad uga jawaabto exercise numbers ayaa jira marka unique numberkan ama numberkan gaarka u ah exercise walba wuxuu ku lifaaqan yahay cirifka bidix ee kore ee cashir walba marka laga ka shaqeynayso marka aan soo koobo weedhan koorsadahan Hurbad English level 1 level 2 level 3 level 4 waxay tahaba ama grammar ama business English ama level 2 giisa ama level 1 kiisa haday tahay vocabulary haday tahay idioms haday tahay phrasal verbs tay doonto ha noqoto 10 kooda bookbe kulligood waa isku wada mid waxay u qaybsamaan semesters ee ah themes qaybo level walba waxa laga yaabaa inuu dhowr semester leeyahay 7 6 5 4 iyo waxay tahaba ama ka badanba marka adiga waxa laga rabaa inaad la socoto semesterka marka dhamayso inaad semesterka ku xiga aad ku xijido levelka waa iskaga mid semesterka ku kala duwan ama themeka ujeedada marka laga hadlayo maxaa yeelay hadaa u fiirsato level 1 aad soo martay unit 1 ilaa iyo unit 8 tusaalahan ah waxay ka wada hadlayaan sida dadka la isku baro sida looga hadlo waxaad leedahay sida looga hadlo qoyskaaga sida looga hadlo jinsiyadaada sida looga hadlo wadankaaga sida looga hadlo waxyaabaha leedahay markaas kadib waxaad baratay unitkaas wax ku saabsan oo ah introducing yourself iyo ilaa iyo unit 8 aad ka tagto sida maaragta looga hadlo waxyaabaha adigu aad leedahay marka tagto unit 9 oo kale waa level 1 marka kadib waxa ku baranaysaa ilaa unit 14 waa ujeedo kale ama theme kale ama semester kale marka sida ayaan u kala qaybinay si waxbarashada aan ku jeclaysiino libaax ama libaaxad marka waxaan rajaynayaa inaad buugga soo iibsatay DK aad ixtiraamtay ee aad hal abuurkooda ilaalisay buugga hortaada oo yaalo haddana aad fahamtay soo buugga u shaqeeyo videogan waxa laga yaabaa hadda inuusan wax macna ku samayn balse markaad koorsada dhamayso ama semesterka aad dhamayso fadlan how this course works bal marka la daawo marka buu dhadhan ku sameynaya adawq dhadhanka iga daa ciyaarta inuu ku dhadhamaan rabaa وما أدراك وايه وما زلت مدنه أما برو وحنا رجينا كورساني إنه يكون دمي دونتو الذوق إنه يكون دمي دونتو رجينا